waxaa la sheegaa maalmaha ka mid ah markaasi oday fuushanaa tareen oo waxa la socday wiil uu dhalay wiilkaasi da'diisa waxa lagu qiyaasaa 24 jir wiilkii baa markuu gaarigii waxoogaa yar socday wuxuu aabay eeg geedadkii quruxda badnaayo dhan bayna daba socday oo waxaad moodaa markuu gaarigu kula socday inay geeduhu kula socdaan aabihii baa qosla markaasi ku yiri aabo qurux badan yahay iska daabo waxa ag fadhiyay laba qof oo markaasi hareertooda fadhiya way la yaaban yihiin ilmahan intan leeg ee haddana sidii ciyaalka u dhaqmaya mar labaad buu ku celiyay hadalkii wuxuu ku yiri aabay eeg daruurihii baa xataa inuu daba socday markaasuu aabihii qosla ku yiri aabo iska daabo labadii baa ishayn kari waayay markaasi qofii ag fadhiyay waxay ku yiraahdeen ilmahaagan yaray sida ah يعني بل أنتو دأدو لاقي هاي إيو هذا حالته كتير ما نختار إيو حقيقي أبيه سقول على عدين إيو جوابه وحكول حتى أبن نختار كي كلا إميدو المها يجو أفري 40 سنة أيو إن دلعة ما أنتو حركيا سبحانك يا عظيم لا تحكم على الآخرين تذكر لها حكمين فلكل شخص له قصة أفضل بوحو ليه مركزي شيء كجونية واحد عمل رك قاركود إنه مركزي دتك حكمنا أنو تشاش كرينو إنه كنا وحبك أوجين باجرون كوجا إيه واحد كسبب فعلاً أي سمينيان سببت أو سمينيان محاولة أكو كذين يقفكن إنه كون سويدين سؤال فربضان إنه كون نعذر تعارن أي إنه مركي بقفكي كل بودينا حكم دق وأنا دقن إنه بلشدنا لحد إن بدن لقو أركو محاولة عن مركز dadka xukumeen sida adiguba qiso u leedahay ayay iyaguba toban qiso leeyihiin qofkana aynu markaasi u cudur daarno intaynu u cudur daari karayno likulli shakhsin qissa ku baraarug markaa